waa maxay hyperthyroidism? Hyperthyroidism waa xaalad qanjirada thyroidka ama thyroidka ay soo saaraan qadar xad dhaaf ah oo ah hormoonada thyroidka oo kala ah thyroxine oo ah T4 iyo triiodothyronine oo ah T3. Hormoonadani waxay nidaamiyaan howlaha jirka ee kala duwan oo ay ku jiraan dheefshiidka kiimikaad, heerarka tamarta iyo koriinka guud. Soo saarista xad dhaafka ah ee hormoonadani waxay dardar gelisaa dheefshiidka kiimikaad, taas oo keento calaamado kala duwan oo suurtagal ah iyo in ay saameeyaan hababka xubno badan. Maxay tahay sababaha keena hyperthyroidism? Sababaha keena waxa ugu horeeya sababta koowaad waxay tahay Graves' disease, waana sababta ugu badan ilaa 75% cudurka hyperthyroidismka waxaa koosgareeyo ama sababo Graves' disease. Graves' disease waa autoimmune disorder ama xanuunka difaaca jirka, kaas oo sababaya difaaca jirka inuu si qaldan u weeraro qanjirada thyroidka, taas oo keenta soo saarista hormoonada thyroidka. Sababta xigta waxay noqon kartaa toxic nodular goiter. Toxic nodular goiterka waxaa loo kala qaadi karaa laba qaybood, taas oo ah multinodular or solitary thyroid nodule. Micnaheedu waxay noqonaysaa multi markay tahay waa wax ka badan hal, solitaryna waa hal ama single, taasoo ah hal ama in ka badan hal buro ama kuus yar oo ka soo baxo qanjirka thyroidka, kaas oo noqon karo mid active ama mid firfircoon oo soo saaro hormoonada thyroidka oo dheeraad ah. Marka labadooda haddii aan kala qaadno, multiple-ka wuxuu sababi karaa hyperthyroidism 14%, halka solitary-ga ama single-ka uu sababi karo 5%. Sababta saddexaad waxay noqon kartaa thyroiditis ama caabuqa qanjirka thyroidka, kaas oo sababi kara in si ku meel gaar ah loo sii daayo hormoonada thyroidka ama thyroidka ee keedsan. Thyroiditiska waxaa loo qaybiyaa laba nooc: subacute thyroiditis. Subacute thyroiditiska badanaa waxay keentaa 3% hyperthyroidismka. Nooca kale waxaa loo yaqaanaa silent thyroiditis ama sidoo kale waxaa la dhihi karaa postpartum thyroiditis. Sababtaanina waxay keeni kartaa 2%. Sababta ugu dambeysa waxay tahay qaadashada iodinka xad-dhaafka ah. Heerarka sare ee iodinka cuntada ama daawooyinka waxay kicin karaan wax soo saarka hormoonka thyroidka ama thyroidka xad-dhaafka ah ee shakhsiyaadka u nugul. Calaamadaha lagu garto hyperthyroidism. Calaamaduhu way ku kala duwanaan karaan darnaanta xanuunka ama cudurka, waxaana ka mid noqon karo miisaanka qofka oo isdhimo iyada oo aan la garanaynin sababta, maxaa yeelay cunto cunistiisa ama cunto qaadashadiisu waa mid caadi ah. Sidoo kale wadna garaaca oo degdeg ah ama tachycardia, garaaca wadnaha oo kordha ama garaaca wadnaha oo aan joogto ahayn. Calaamada xigta waa walaaca, dareen kacsanaan, xanaaq ama deganaansho la'aan. Sidoo kale gariir, gaar ahaan gacmaha iyo faraha. Dulqaad la'aanta kuleylka, dhidid badan, dareemidda kuleyl badan iyo u baahnaanta in aad si joogto ah isku qaboojiso. Waxaa kaloo ka mid ah dhaqdhaqaaqa mindhicirada oo kordha, sida saxaro badan oo soo noqnoqota, shuban ama isbeddelka caadooyinka mindhicirka. Sidoo kale daal, dareemidda daal ama daciifnimo, inkasta oo ay adag tahay ama ay ku adag tahay inuu hurdo qofka. Sidoo kale isbeddelada caadada, caado aan joogto ahayn ama khafiif ah ama sidoo kale caado yari. Calaamadaha waxaa kaloo ka mid ah goiter. Goiterka waxa waaye qanjirka thyroidka oo weynaada, kaas oo sababi kara barar muuqdo oo qoorta ah. Sidoo kale timaha iyo maqaarka oo isbeddelo, waxaa laga yaabaa in ay noqdaan kuwo jilicsan. Sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid noqon karo astaamaha indhaha, kiisaska sida cudurka Graves' disease-ka. Calaamadaha waxaa ka mid noqon karo indho barar ama cuncun indhaha ah. Ogaanshaha xanuunka. Si loo ogaado xanuunka hyperthyroidismka, bixiyayaasha daryeelka caafimaadku waxay isticmaalaan habab isku dhafan sida taariikhda caafimaadka iyo baaritaanka jirka. Taariikhda caafimaadka wax kale ma ahane waa ka hadalka ama ka wareysiga calaamadaha, taariikhda qoyska iyo sidoo kale in la sameeyo baaritaanka jireed si aad u hubiso calaamadaha sida goiterka ama gariirka, khaasatan gacmaha iyo faraha. Sidoo kale baaritaanada dhiigga oo laga baari doono 3 shay. Tan koowaad TSH test oo ah thyroid stimulating hormone test oo aan ugu soo hadalnay muuqaalkeenii hore. Caadi ahaan wuu hooseeyaa hyperthyroidism marka uu jiro. Tan labaad waa free T4 and free T3 test. Heerarka sare waxay muujinayaan hormoonada thyroidka ee xad-dhaafka ah. Tan saddexaadna waxay tahay thyroid antibody si loo hubiyo xaaladaha difaaca jirka sida cudurka Graves' disease. Waxaa sidoo kale meesha aan ka marnayn image test ama tijaabada sawirada. Iyagana waxaa la sameeyaa 3 shay ugu caansan badanaa waa thyroid
thyroid ultrasound ama ultrasoundka si loo arko qanjirka thyroidka loona ogaado in ay wax ka khaldan yihiin. Midda xigta waxay tahay radioactive iodine uptake test wuxuu cabiraa inta iodine uu qaadanayo thyroidka ama thyroidka. Qaadashada sare waxay muujinaysaa unugyada thyroidka ee firfircoon ama active-ka ah oo shaqaynayo. Tan ugu dambeysana waxay tahay iskaanka lagu sameynayo thyroidka ama thyroidka wuxuu bixinayaa ama nasiinayaa sawiro ama muuqaal ku saabsan qanjirka thyroidka, wuxuuna kaa caawin karaa ama aad ku aqoonsan kartaa meelaha firfircoonida badan ee ka jirto ama oo active ka yahay. Sidee loo daaweeyaa xanuunkan? Daaweyntu waxay ku xiran tahay sababaha aasaasiga ah iyo darnaanta calaamadaha. Ugu horeyn, medicationska ama daawooyinka caadiga ah. Midda koowaad waa daawooyinka antithyroid. Daawooyinkani waxay yareeyaan soo saarka hormoonka thyroidka. Midda labaad waa beta blockerska. Daawooyinka loo yaqaano waxay gacan ka geysan kartaa maareynta calaamadaha sida garaaca wadnaha oo degdega ah iyo gariirka. Midda kale waxay tahay iodine solution. Mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa si degdeg ah si loo yareeyo heerarka hormoonada thyroidka, gaar ahaan qalliinka ka hor ama xaaladaha degdega ah. Sidoo kale daawooyinka waxaa ka mid ah radioactive iodine therapy. Waxaa bukaanka la siiyaa kiniini iodine shucaac ah kaas oo burburinaya unugyada thyroidka ee firfircoon ama active-ka ah. Haddii daawooyinka ay wax tari waayaan, optionka ugu dambeeya ee aan haysano wuxuu noqon doonaa qalliin. Xaaladaha qaarkood, gaar ahaan haddii uu jiro goiter weyn oo loola jeedo bararka dhuunta ama shaki kansar ah oo laga shakisan yahay in uu kansar yahay, waxaani qayb ama dhammaan qanjirka thyroidka ayaa laga yaabaa in qalliin lagu saaro. Markaasi waxaa qasab noqon doonto bukaanka beddelka hormoonada thyroidka in uu daawo qaato noloshiisa oo dhan. Sidoo kale waxaanan meesha ka marnayn isbeddelka cuntadaada iyo habnololeedkaada, maareynta walbahaarka, ka fogaanshaha qaadashada xad-dhaafka ee iodinka iyo qaadashada cuntooyin isku dheelitiran waxay taageeri kartaa daaweynta guud. Ugu dambeyn, maxay yihiin dhibaatooyin ka dhalan karo? Haddii aan la daaweyn, hyperthyroidism waxay keeni kartaa dhibaatooyin halis ah oo ay ku jiraan dhibaatooyinka wadnaha sida atrial fibrillation ama congestive heart failure. Waxaan aan sheegaya waa cudurrada wadnaha ku dhaco. Sidoo kale osteoporosis waxa loo yaqaano, taasoo ku dhacdo lafaha, waxayna lafaha ka dhigaysaa mid jilicsan. Sidoo kale dhibaatooyinka waxaa ka mid noqon karo thyroid storm. Waa xaalad naadir ah laakiin nafta halis gelin karta oo lagu garto kor u kaca calaamadaha si dhaqsi ah oo aad u daran. Ugu dambeyn, waxaan kusoo gabagabeynayaa dabagalka joogtada ah ee lala yeesho bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ayaa muhiim u ah la socodka heerarka hormoonka, hagaajinta daaweynta marka loo baahdo, iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ka dhalan kara. Muuqaalkeena intaas ayuu ku eegyahay. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu Alla idmo. Khayr badan.